xildhibaan jaamac jibriil jaamac oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Ceergaabo oo kula hadlayay gudaha magaalada Ceergaabo telefishinka Ariel ayaa dhalaalihii ugu cuslaa abid u jeediyay mayrka degmada Ceergaabo Ismaaciil Xaaji Nuur oo ku eedeeyay lunsi hanti qaran iyo arrimo kale oo la xidhiidha jabhadda Korneel Caare oo uu sheegay inuu ka dambeeyay bixitaanka jabhaddaasi iyo weliba qodobo kale oo xasaasi ah waxaana xildhibaan jaamac jibriil jaamac hadaladiisii ka mid ah sida tan waxaan halkan ka sheegayaa waxa halkan ka jira lin oday ah oo boobay gobolkii ama degmadii Ceergaabo magaaladii Ceergaabo qoraal waan ku sameeyay waana la helay qoraalkii joornaaladan waan ku qoraynaa TV-dan waan ka sii deenaynaa meediyaha WhatsApp-yadana waa laga daawan doonaa wixii la isku difaacayo hala diyaarsado mayrka degmada Ceergaabo wuxuu iibiyey NGD weynayd ay lahayd dawladii siyaad bare u dhistay ANC laantii raashimada iyo waxaa keeni jirtay ganacsigii oo cabirkeedu ahaa 200 iyo 200 wuxuu ka iibiyey Elmo Faarax 70 kun buu ka siiyey ninka odayga meeshaas maanta waad arkaysaan sawiradeeda waa la tusi doonaa Elmo Faarax baa la weyn ka iibsaday wax lagu qabtay lama jirto waana 2005tii waqtiga waxa la iibsaday ninka la yiraahdo Ina Sulub oo shalay loo magacaabay wasiirka wuxuu iibiyey boostadii qaranka ee ahayd ilaa Ingiriis ee dawladii siyaad barisi hagaajisay wax laga iibiyey ninka gafana la yiraahdo Telesoble oo uu la shurugay wax laga siiyey 70 kun malaha lacagtii jeebka ayadga ay ku dhacday wuxuu iibiyey dhakhtarka dhinaciisii dhawaan 120 lagu dhiftay 80 oo dhakhtarka dhinaceeda uu jaamacad baa laga dhigayaa waxna lagu ceebayo la yiri dhagax dhig madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland meeshaas waa meel private ah oo dad leeyahay guriyana laga dhisanayaa jaamacad jirta ma jirto wuxuu iibiyey laantii ganacsiga meeshii ay ahayd ee suuqa bartikiisa ahayd waa dhawaanta 95 kun ayuu siiyey wuxuuna ka iibshay Cabdi Triika ninka la yiraahdo jeebkiisa ku dhacday lacagtaasu wuxuuna noogu marbarsiyooday inuu laamiga Tispalas dhisayso uu ku hagaajin doono intiisana ku darayo lacagtaas waxaanu iminka ogaanay inuu Turkiga guri kaga dhistay meeshan Ceergaabo labadiisa guri ee waaweyn hore dhexdoodana uu guri kale ka dhistay wuxuu iibiyey beertii xorriyadda wuxuuna ka iibshay inaan reer Ceergaabo ah inanka waan u sheegnay waa in wanaagsan oo iska shaqeysta laakiin uu ku qasbay inuu ka iibiyo aanu ku haynaa cadana wadarki doontaan beertii iyo guriyihii maaliyadda dawladii Ingiriiska iyo siyaad bare isaga sii dambeeyeen labadiiba isaga haysta wuxuuna ka dhisay wuxuu ka samaystay beer weyn oo uu riigeliyey riigana well fishan baa samaysay waa riig solar isagana ka faa'iideystay waana shacabka Ceergaabo wuxuu kaloo boobay dhul beereed fara badan oo uu riiga ka samaystay wuxuu beerteen macalinahay meel ku tilmaamo riig buu ka samaystay Islamic Relief ay samaysay riigaas waxa weeyaan booyadaha ayaa maxay ahayd ka dhaamiya lacagtiisuna jeebka ku dhacda waxa halkan 4-5 riig oo magaaladu ka cabto riigagaas cunaqabateen buu ku hayaa dadkaas biyuhuna mitr kubiyo waxa weeyaan 25 kun dadkuna way ka qatayeen wuxuuna ka iibshaa dadka beeraha lacagtana isaga ka qaata wakaaladii wuu diiday dawladdu inay la shaqeyso oo gacanta ku qabato wasaaraddu isagana xoog ku haysta riigagii dawladda isaga haysta
wuxuu sameeyey gurigiisa beerihiisa uu xaaraanta ku haysto wuxuu ka dhisay wadariig ayuu ka sameeyey riigagaas waad wada arki doontaan fartaa laydugu fiiqi doono waxaas oo dhacay oo khiyaano ah waxaa jiray iminka WFP raashimo ay keentay oo dadka shacbiga la siinaya nimanka raashinada keena waa niman uu dhacay oo lacag ka qaado baada weliba wuxuu yidhi waan diga bedelayaa haddii aadinaan siin 15% waa 3 nin dadku way ogyihiin reer Cergaabo wuxuu maxay tahay hay'adaha gobolka jooga tii aan soo marin oonu lacag ka qaadin ama meesha uu leeyahay aan wax uga samayn ma dhaqaaqi karto walaa cid buu ogol yahay wala cid ka hadli karta iminka wuxuu wadaa dhaam weyn oo 500 ku baxayso ayuu ka wadaa madare oo gurigiisa lacagta ku baxaysa waa SDF ka ayaa bixinaysa dawladda Soomaaliland ma soo siisay bilaadan in loogu faa'iideeyo dadka community-yada waxa soo kale in looga faa'iideeyo inay nisiyaan xaq uma leh hal xisaabtanto dawladdu haddii ay dadka boobaya u caburinayso waxa weeyaan arrin aad u liidata marka wuxuu kaloo sameeyay waxyaalo noocaas oo meelana oo dhibaato ah aakhirkii wuxuu sameeyay inuu saldanad samaysto oo inuu adeer u yahay saldanadii soo jirtay ee reer Muuse Maxamed Cigaal ee wiligeey jirtay ee lagu caalamaalay ee dadka kala hageysay inuu baabi'iyo inuu adeer u yahay oo ka dhigo beesha odageedii beesha Muuse Ismaaciil taasna waa laga diiday madaxweynuhu uu tagay ina kaahin buu tagay wuxuu yiri war ninka halayla wado hataa 3 shirkadood baa magaalada ka jira Telesom Leyrka maxay ahayd shirkadda Gols la yiraahdo saddexdaba wax buu ku leeyahay mid waxa ugu jira 100 oo share Telesom takalena inaan ka yarin ugu jirta shirkadda Leyrka la isaga wala badankeeda isagiyo 2 nin oo kala dambaaba yarkan uu commission-ka geeyay hadda waliba waxyaalaha kale sameeyay waxa kamid ah jabada iminka buurta ku jirta oo dadka cadibaysa waa ragii keenay meesha ay soo gala halka markuu caari buurta galayna wuu baxsaday oo Hargeysa u baxsaday haddana Muuse biixoo hor fadhiya oo leeyahay caari lacagan ku saaro iyo hadiiba ku reeyahay habaruristibu ku dhex dhuumanaya ninka odayga ah waxaan u sheegaynaa wixii qoraal waan haynaa milyahan u dhiibaynaa qoraalkii waan gudbinaynaa dawladda nu gudbinaynaa iyo xirlayaasha qaranka waxaan u gudbinaynaa waxaan u gudbinaynaa amniga ummadda Soomaaliyeed reer Soomaaliland baan u gudbinaynaa kuwa koolkooliyaan u gudbinaynaa oo yiraahdo waa nin raga dambiilaha noocaas marka waxaan codsanaynaa in ninka caynkaas baadhis la soo diro la eego waxyaalaha uu sameeyay waan tustus Cabdiraxmaan Maxamed Xidig telefishinka Ariel Cergaabo